inaan ilaahay weydiisanno in uu nagu sugo nagu hago nagu hagaajiyo manhajka saxda ah iyo diinkaas toosan dhanka kalena ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga duwo afkaarta khaldan diimaha baatilka ah oo ugu horeeyaan diinta kirishtanka iyo diinta yahuudda اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين intaas markaan faahno walaalayaal waxaad ogtihiin oo aan cidna ka qarsoonayn in aan noolnahay hadda zaman aad u fitna badan oo fitantiisu ay aad u fara badan tahay oo xitaa qofka muslimka ah mararka qaar gaarsiinaysa cabsi ah siduu nebiga sheegay calayhi salaatu wasalaam haddii uu waabariisto isagoo muslim ah iimaanka ma ku galabaysan doonaa mise maya sidoo kale haddii uu ku galabaystana in uu ku waabariisan doono iyo in kale arrinkaa waxaa fahmaya dadka diinta iyo toosnaantu ay qiimi la leedahay zamanka hadda aan ku jirno marka walaalayaal waa zaman taxadiyaadkiisa iyo caqabaadkiisa ay u fara badan yihiin duulaanka lagu hayo muslimiinta iyo diintooda xaqa ahna siyaabo kala duwan ay noo soo gaarayaan muslimiintu maanta waxay nool yihiin casri iyo zaman ay isdhex galeen xaqa iyo baatilka oo itijaahaadka saxda ah iyo kuwa khaldan ay isku dheehmeen oo qofka caqliga leh oo cilmiga leh oo ilaahay uu sugo subxaanahu wa tacaala keligiisa uu ka badbaadi karo jiilka hadda jooga iyo generationka hadda zamanka nool khaasatan dhalinyarada iyo da'yartu waxay nool yihiin siraac fikri ah iyo loolan iyo dagaal laga yaabo mararka qaar qofka inuu gaarsiiyo inuu walciyaadu billaahi diinta islaamka uga baxo dadka ku takhasusay alghazw alfikri waxay sheegaan fikirka iyo ideolojiyada iyo cultureka iyo thaqaafada inay tahay zamankan hadda aan joogno meelaha loolanka ugu weyn uu ka jiro maraakista arrimahaas indhaysana waxay sheegaan alquwa alcaalamiya waxa loo yaqaano in ay ku bixiyaan balaayiin dollar ah si ay u hantaan quluubta dhalinyarada oo ay diinta saxda ah uga leexiyaan arrinka asaga ah marka waxa ugu badan ee ay u pilaangaraynayaan oo ay u qorsheynayaan gaaladu sanadaha tobanaanka sano iyo boqolaalka sano soo socda in muslimiinta laga leexiyo laga duwo diintooda jahwareerna lagu rido xataa diintooda keliya in laga kaxeeyo ma ahane diimaha ay haystaan oo khaldan xataa inay ku biiraan looma ogolo waxaa la rabaa bayna qof aan diinba haysanin oo jahwareersan oo wareersan inay ka dhigaan walidaalika in badan oo dhalinyarada ka mid ah iyo muslimiintaba si guud waxay aad ugu saamoobeen tawajuhaadka hadda jira oo aadka u faraha badan ee aan la soo koobi karin sida cilmaaniyadda sida ilxaadka laadiiniyada waxay u yaqaanaan maadiyada insaaniyada yacni maalinta ka dambaysa fikir cusub oo qalloocan ayaa soo baxa marka ujeeddada iyo yoolka ay ka leeyihiin kulligooda waa in muslimiinta laga fogeeyo diinkooda iimaankooda rumaysanaanta ay rumaysan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo daarta aakhiro sida hadday dhacdana ay ku khasaaraan if iyo aakhiro oo ay tabaciyo iyo inay daba joogaan gaalada inta adduunka jiro saasay ugu talagelsan yihiin laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala midda ayada ah
uma rumaynayo walaalayaal afkaar aad u fara badan oo baatil ah iyo madaahib kala duwan oo qalloocsan ayaa mujtamacaadka muslimka ah iyo bulshada muslimka ah ku baahsan sababtuna waxa weeyaan sida aad ogtihiin caalamku hadda wuxuu la mid noqday cawlamada kadib tuulo yar oo qofka jooga maalan Johannesburg iyo kan jooga adduunka meesha ugu dambaysa Australia iyo Sydney ama geeska kale ay wadaagi karaan thaqaafada iyo culture-ka si fududna wararka la isaga qaadan karo iyo afkaarta maxaa yeelay waagii hore haddii fadaa'iyaad iyo maxaan ku yiraahdaa wasaa'ilul i'laamka TV-ga iyo raadiyowga iyo midyaha la adeegsan jiray hadda waxaa duulaan ku ah qof kastoo muslim ah guri kastoo muslim ah bal shakhsi kastoo muslim ah yar iyo weyn dumar iyo rag intaba inxiraafka ayaa duulaan ku ah telefoonada aan haysano iyo teknolojiyada oo aad u horumartay ayaana u horseeday waxayna sababi kartaa marka qofka uu yaraan in uu tashattut ku dhaco oo qofkii uu jahwareero uu kala garan waayo maxaa sax ah maxaa khalad ah maxaa xaq ah maxaa baatil ah caqiidada dadka muslimiinta ah iyo fikirkooda iyo qiyamtooda iyo akhlaaqdooda wanaagsan iyo anshaxooda fiican in ay duulaan ku noqdaan marka dad xambaarsan afkaar khaldan oo ilhaad ah afkaar khaldan oo western ah manaahij duulaan ku ah maskaxda iyo aqliga qofka muslimka ah oo waliba sidaan soo sheegnay fikirka kaliya ma ahane anshaxa iyo dabeecadda la doonayo in looga kharibo oo la soo saaro marka qof mamsuukh ah oo aan hawiyad lahayn diin haysanin qiyam iyo mabaadi iyo wax wanaagsan aan aaminsanayn sida daraadeed si loo xaqiijiyo hadafkaas waxaa la sameeyay oo la qaaday xamalaad fara badan dacaayad fara badanna waa lagu furay mabaadi'da islaamka wasaa'il fara badanna waa la adeegsaday oo kala duwan haddii ay noqon lahayd maqaatic mar'iya kuwa la arki karo kuwa la maqlaayo iyo kuwa la akhriyo intaba waxaa waliba fasaadka sii ziyaadiyey waxa hadda loo yaqaano wasaa'il التواصل الاجتماعي iyo smartphone-kan iyo maxaan ku yiraahdaa wixii la midka ah ee si fudud qof kasta uu ku heli karo walidaalika qofka inta telefoonkiisa soo qaato ayuu wuxuu rabo oo kufri ah oo ilhaad ah oo xumaan ah uu sheegi karaa si fududna wuxuu u gaarsiin karaa meel kasta uu ka doono adduunka sida daradeed walaalayaal waxa arrinka u tilmaamaynaa khatartu inay aad u weyn tahay sharkana uu ballaaran yahay ay tahay marka muslimiin haddaan nahay in aan si go'aan ah oo adag aan isu diyaarinno sidii aan u waajahi lahayn oo aan uga hortagi lahayn fasaadka asaga ah qofka muslimka ah inkastoo ilaahay subxaanahu wa tacaala tawfiiqkiisa ah hidaayo uu siiyey laakiin waxa ku hareersan oo had iyo goor khatar ugu jiraa inuu dabinka ku dhaco acdaadiisa oo fara badan shaydaanku uu kow ka yahay inna shaytaana lakum caduwun fattakhiduu caduwa shaydaanka asaga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu weydiistay wuxuu siiyey nolol abadi ah adduunka ilaa qiyaami saaca inuusan dhimanin marka laga soo bilaabo waagii uu jannada ka soo saaray cadowtinimo darteeda aabbaheena aadam calayhi salaam iyo hooyadeena xawaa calayhi salaam ilaa yowmina haada wuxuu ku howlan yahay oo u taagan yahay oo uu u tabaabushaysanaya filaanka u dejinaya sidii uu aniga iyo adiga inoo lumin lahaa wuuna ku dhaartay fabicizatika la ughwiyannahum ajmaciin marka experience ku filan oo boqolaal sano ah
kumanaan sano ah ayuu leeyahay meesha laga soo galo waxa aad ku fiican tahay meesha aad daciifka ka tahay waxa aad jeceshahay marka waa cadow innahu yaraakum huwa qabiilu min haythu la tarawnahum laakiin qofka muslimka ah haddii uu ilaahay isku xiro oo diinta ilaahay uu ku dhegnaado dhagartiisa waxba kama tarayso inna kayda shaytaani kaana daciifan cadowga koowaad marka waa shaydaankaas oo muddadaas dheerna yaqaano afkaarteenna meelahana laga soo galo experience-na u leh baadinta dadka muslimiinta ah ama bini aadamka guud ahaan wuxuu kaashanayaa marka fitanka oo aad u batay dartiisa marka inxiraafka hadduu kugu dhaco walciyaadu billaah sidaas ayaad noqonaysaa wax thaabit ah oo cad oo xaq ah oo shaki uusan haba yaraatee ku jirin ayaad isaga shakinaysaa waad ka shakisayba 50-50 ayuu ku leeyahay soomaydan arkin social media soomaydan ku arkin dhalinyaro Soomaali ah oo la soo taagan ilaahay ma jiro wuxuu ku leeyahay iga dhaadhici ilaahay inuu jiro itaabsi waxaasi waa caqli darro liannahu haddaad tiraahdo asaga soo ruux ma kugu jirto jirkaaga soo ruux kuma jirto ruuxdaada itaabsi haddaad tiraahdo ma ku taabsiin karo ma lugtay ku jirtaa ma madaxay ku jirtaa ma wadnahay ku jirtaa lama yaqaano ruuxdii kugu jirta oo aad la dhaqdhaqaaqayso oo aad ku nooshahay haddii aadan garanaynin waxay tahay فكيف بالله جل وعلا marka caqliga hadii wadiifadiisa laga leexiyo oo laga qaado wuxuu ku soo baxayaa wax waalan oo kale ayuu ku soo baxayaa oo aan garaad lahayn khatarta marka inxiraafka noocaas oo kale uu leeyahay ayay ka mid tahay sida haday dhacdo marka qofku waxay u geynaysaa si tartiib ah maadaama uu cabaayo khaladaadkan iyo inxiraafaadkan si tartiib ah ayuu xooga dheeraanayaa shariicada Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo ahkaanteeda wax yar uu ku bilaabi waxa laga yaabaa wax yar inuu ku bilaabo maalinta ku dambeysana mid kale uu ku xijiyo maalinta ka dambeysana mid kale uu ku xijiyo ilaa uu wal billah diinta islaamka uga baxo qoliyo hadda Ilaahay uu ibtileeyay oo isku sheegay inay quraaniyiin yihiin yani waxay leeyihiin anaga wixii quraanka ku yimaada kaliya ayaan aaminsanahay waa beentood quraanka xataa ma aaminsano hadda bariyahan way nagu soo bateen Soomaalida waagii hore Arab iyo Ajamtaan Hindida iyo dadkaas aad ugu badnay fikirkaas hadda laakiin Soomaalidu way soo galeen waxay ku leeyihiin dajaal aawe cilmigii waa hormaray dajaal kan la sheegayo oo la leeyahay wuu soo bixi doonaa oo nala baray nabiga uu nabaray kaleey salaam salaad kasta wa'uudu bika min sharri dajaal intuu jooga waxay ku leeyihiin cilmiga waa hormaray adduunka oo dhan waa la soo maray dajaal intuu jooga yaajuuj iyo maajuuj xagee joogaan adiga hal su'aal kaliya weydii walaalo xagga hana geynine adiga laftaada yaajuuj iyo maajuuj hanoo dambeeyaane dajaalna hanoo dambeeyee ruuxdaada aawade ruuxdaada naf ma kugu jirta adiga ruux ma kugu jirta ha xagee aawe itaabsii dheh ma ku taabsiin karo waa beentiis waa khaayin ilaahay ka furtay waa mujrim afkaartan lagu shubay ayuu rabaa marka inuu ka gado laakiin si tartiib ah ayuu kuugu bilaabi marka dambe waxay gaarsiinaysaa marka qofka inuu diinta ka baxo wixii musallamaadka ahaa uu inkiro asagoo ku andacoonaya aqliga saxda ma ogola war adiga iyo nabi maxamed ya aqli badan kaleey salaam adiga iyo Abu Bakar Umar Uthman Ali kumanaan ka sano muslimiintaas aqliga badan ee Ilaahay uu doortay ee noolaa way qireen sideedabana qofka muslimka ah waxyaabaha lagu yaqaano oo uu kaga duwan yahay dadka aan muslimiinta ahayn waxa kamid ah al-iimaan bil ghaib alladina yu'minuna bil ghaib waxa maqan ee qarsoon inaad rumayso Allah jalla jalaaluhu waa ghaib wa inaad rumaysaa nabi maxamed kaleey salaam binisbati lana waa ghaib nabi maxamed ma aan arkin anaga malaa'iktu waa ghaib wa astaamaha ugu weyn ee qofka muslimka uu kaga soocan yahay qofka gaalka ah alladina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum wa hum bil akhirati hum yuqinun marka adiga markaan leedahay ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasuulullah waxay keensanaysaa al-iimaan bil ghaib arkaanta iimaanka ee lixda ah ayay kamid tahay walaalayaal inxiraafkaas dhibaatooyinka uu leeyahay waxa kamid ah
haddii qalbiga uu leexdo oo uu qallacmo waxay keensanaysaa marka qofka fikirka keliya ma ahane camalka uu qaban lahaana inuu leexdo oo qofka munxarif fikriyan keliya ma ahane wuxuu noqonayaa munxarif akhlaaqiyan akhlaaqdiisa iyo qiyamkiisa wuxuu ilaalinayo ma jirto walidaalika waxay u horseedaysaa marka qofkan inuu noqdo qof nafci ah maslaxji ah maslaxadiisa keliya wuxuu ka arko uu ka dhex arko ayaa la saxsan